nin siyaasi ah oo dantiisa ka dhex arkay doorashadii dadbaneyd inay socoto oo teendhadii maxaan ku afisyono lagu tiilay ee meeshaasi dana ka gashay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal daw ma aha in kaas la dhageysto oo la dhageysan waayo codka hay'adaha dawladda ee idinku aad dhisateen ee samaysateen oo lagu kalsoonaan waayo codka hay'adaha dawladda ee adinku aad samaysateen hadday tahay dawlad dhexe iyo hadday tahay dawlad xubinka dawladaha dawlad goboleedyada xubinta ka dawladaha federaalka hadday tahay institutionska jira aan ku ganacsanaano dalkaani doorasho dadban waa ka soo guuray u noqon maayo ilaahay idinkiis waa qof iyo hal cod waaye madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa councilka degmada heblaayo la yiraahdo laga keeno waa loo coday waa la doorana dadka doorana inta lagu dhacay iyo hebla xagga dib uga dhacay iyo waa la daahay iyo waxa soo dhan oo maxaan ku raas safaadka la bixinayaa hadafka waa wax muhiimka meesha u socono inaan gaarno yaa muhiim ah safar dheer haddaad galaysid inaad qodax ku istaagtay iyo inaad ku hantaa turyootid iyo inaad bahal meel kaaga soo baxay iyo kulli waa suurtagal laakiin haddaad hantaa turyootad gadaal u noqoto safarkii meeshaad u socoto gaari maysid safaraan u soconnaa safarkaan u soconnaa waa qof iyo cod wax kasta oo jirana waa u maraynaa si aan u gaarno qof iyo cod sida nidaamku qabo dastuurka hadda noo degan qabo aan hadda dib u eegayno qodobada waqtigan la jaanqa dastuurkeena 12 sano ka hor la sameeyay 12 sano ka hor xaaladdu dalku joogay maanta ma joogo kalsoonida dadka Soomaaliyeed dawladnimada ay ku qabeen maanta ma joogto meeshii waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku qanacsanaadaan doorashadaas qof powerka awoodda ilaaha iskala dadka loo celinaa dadku inay doortaan waaye war Soomaaliyeed dabarka 34 sano ummadeena ku xirnay inaan gooynaan rabnaa kuwa dabarka inuu ku sii xirnaado rabo dhagihiina ha u furina waa dardaaran odayeed dardaarankaas waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo wax yani aan sabab aan uga hakanayna ma jirto waa gaarina nidaamka sharciga la tashiga isqancinta isdhageysiga annagoo wadno waad ogtihiin inta jeer oo siyaasiyiinta waaweyn dalkan intaan dibadaha ayagoo jiro la fariisanay dhageysanay hadday aniga madaxtooyadii tahay xukuumadda hadday tahay guddoonka iyo muxuu ahay golihii baarlamaanka hadday tahay intaan la fadhiisanay maxay idin la tahay aan dhahan kadib aan qof iyo koox ula fadhiisanay dalka gudihiisa iyo safar dibadda anagoo joognaba aan soo wada hadal isla aragnay nimanay meel ay u caddahay oo doorashadii dadbaneed iyo dalka inuu meesha ka dhaqaaqin iyo meesha la joogo in la isku haayo iyo yayna idinkuma marshayn xorriyadda la ka qaadi karo qof Soomaali ah xorriyad laga qaadi karo ma jirto qof Soomaali ah oo lagu khasbi karo waxaan uu rabin ma jirto qof Soomaali ah oo xukun aan uu rabin la dul saari karaayna ma jirto yaan la idin cabsi gelinin yaan la idin baqdin gelinin dalku wanaagaasna wuu soo maray haddana meesha u sii socdaahay wanaag badan ayaa ka jira waana gaarsiinaynaa ilaahay idinkiis mar kale dalka Soomaaliyeed meel kasta aan leeyahay guuleysta waagu waa dhow yahay inuu bariyo haddii aan liira maalmihii wacnaana way soo socdaan ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees